wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in halkaasi ciidamada ammaanka ee Jigjiga ay joojiyeen munaasabad lagu taageeri lahaa dib u soo doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland ee Axmed Maxamed Islaam Madoobe. sababta ay ciidamada ammaanka u joojiyeen munaasabadda ayay ku sheegeen in maamulka dowladda deegaanka lagu soo wargelin qabashada munaasabadda iyo in aanan Kismaayo lagu dooran hal madaxweyne balse lagu doortay sida ay sheegeen saddex madaxweyne oo isgarab socda. saraakiisha ammaanka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay inaysan qalalaasa dagaal u dooneen magaalada Jigjiga bacdama Kismaayo lagu doortay saddex madaxweyne guddigoodana aanan Jigjiga lagu qaban karin xaflado lagu taageerayo. arrintaasi ay suurtagal tahay bay yiraahdeen inay dhaliso gacan ka hadal. doorashooyinka Kismaayo lagu qabtay ayaa waxaa walaac ka muujiyay beesha caalamka iyo daneeyayaasha Soomaaliya iyagoo ku tilmaamay doorashooyinka Kismaayo kuwa ka fog cadaaladda, xalaalnimada iyo waliba xornimada. sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay doorashooyinka Kismaayo ayaa shaaca ka qaaday inaysan aqoonsaneyn doorasho waliba ee ka dhacay Kismaayo loona baahan yahay in la qabto dib u heshiisiin la iskugu keenayo dhinacyada Jubbaland ee hardanka u dhaxeeya. jaawararka ka taagan Kismaayo ayaa u baahan in si hoose loo helo xalkeeda kadib markii magaaladaasi ay wada joogaan saddex madaxweyne oo mid waliba sheeganaya inuu yahay midka saxda ah.